وادل وحي كسو دغي جراي مقدس هو ظاهرا وي قدس ومسكن الانبياء قدس واتي نبي لوط قومكيسي markuu cadaabku ku dagay oo cararay way faasri bi ahlika biqid'in min al-layl meeshu ilaahay amray way qudus waa meeshu nabi ibraahim uga haajiray weeye baabil markuu ka cararay dadkii haystay qudus waxa weeye dhulku ilaahay tilmaamay quraanka maqlayseen aayadihi caawo dhan la soo sharxayay subhanallahi asra bi 'abdihi laylan ila al-masjid al-haram qudus waa dhulka ay ku yaalo waadi namla qisadii namlada ku saabsanayd nabi sulaymaan ee ilaahay oo tilmaamay قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قدس واتو إلهي تلمامي وادي النملة وحكوية لمدينة عسقلان اكتاذا قدس واتي كدعضي معركة لورنجري dagaalkii dhex maray nabi daawud qoladu la socday daaluut iyo jaaluut oo ilaahay tilmaamay kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira biidhnillah qudus waa meesha ilaahay tilmaamay inay daahiran tahay sadagaysanayeen taariikhdu waxay u taqaanay qudus wa araadi almuqaddasati daahirati min ash-shirki wal kufr waana dhulka ilaahay ku tilmaamay subhanalladhi aqsa laba masjid baa jiray abcad almasjidayn buu ahaa maka marka la joogo meel ka fog buu ku yaala qudus taariikh ahaan suu ustaadku ka soo sheekeeyay hal noqda haddaan ka idhaahdo waxay ahayd meel mar walba xuruub soo maro oo bani aadamku ay isku haystaan laakiin qudus nabi ibraahim baa dhisay waxaa la yidhi hortiina malaa'ig baa dhisay waxaana dhisay oo kale dad bani aadamka ka mid ah oo ka taariikh horeeyay nabi ibraahim سليمان بامانت لينو هايستا قدس إنay wax kaga aasan yihiin haykal macnihiisu waa maxay yacmaluuna ma yashaa'una min maxaarib mixraab weeye qudus haykalka laga doonayahay hal mixraabna ma ahayna maxaarib fara badan buu Sulaymaan lahaa qudus looma dhisin shirki iyo kufriya waxaa loo dhisay cibaada at-tawxiid kaliya baa loo dhisay weligeedna cibaadatu tawxiid baa lagu haysan jiray dad ilaahay yaqaan baa haysan jiray hadba ummadda inta toosan ba iskale تاريخ ذا الله يدين شاقي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة مركي إلهي وليه على لسان حكاية على لسان النبي إلهي موسى مركو إلهي تلماميه معنى هذا وحوية يهود باتري أنك أنا لو تشهدوا أنك أنا لو يري لكن أستاذ كسفي عن وحيد ينكو شاقي كوي سيتشو غي بينو هاين نقونا ماشا ما كوي سيتشو غي كعرارين يا إلهي نمان حق لبات شوغا نمان كي بينو هاين وحوية إبراهيمي إسرائيلي عربي وحي كوة أبتر صدى النبي إبراهيمنا مساجد كأنه رصي وحقيقة وي لكن كل بين مؤمنين تابع مساجد كإسكاله